dafcadii ugu horeysay ee ka qalin jabisay maxadka Al-Hayaat College laantiisa magaaladani Boorame branch 2 ayaa maanta waxay arday gaadhaysa 22 arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdhaba oo ay ka barteen casharro kala duwan sida Human Development-ga oo loo yaqaan fagaara ka hadalka ay bulshadani inteedii badan hadda ku caanbaxday iyo walibana Englishka oo course kamid ah ay ka qalin jabiyeen ardaydaasi isla goobtaasi ardayda lagu gudoonsiiyay shahaadooyin iyagoo cadeynaya inay dhameeyeen Human Development-ga iyo walibana Englishka dhinaca kalena waxa iyaguna la gudoonsiiyay arday kale oo iyaguna kaalmaha hore ka galay intuu socday imtixaanaadka ardayda qaar ayaa iyagu galay kaalmaha ugu horeeya isku soo gogol xaadho waxa iyaguna ugu horeyn halkaasi ka hadlay maamulaha maxadka branch 2 macallin Abshir Maxamed Barkad iyo walibana macallimiin aad far badan oo iyagoo ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in koorsiyada kala duwan ee ka baxa maxadkani Al-Hayaat iyagoo hadlayana hadaladoodii waxa kamid ahaa sida tan waxaan hambalyeynaa soo koobin oo diraya ardayda qaybaha kala duwan ee maanta ka baxaya barashada Al-Hayaat College ama ka qalin jabinaya sidoo kale waxaan iga laftirkooda hambalyeynaa ardaydii imtixaanka qayb libaaxda ka qaadatay أما قلت يقولون امتحان كسوق قريب كشيء استمرنا نتيجته إن شاء الله تعالى نسين دارنا كل ما تحفظها عن سوية لما حفظنا هذا نقول قبلنا وعسكو حنبار السنة صدق قيبات طيب وأرضي يوم الديفلومات اللي جاني يصير أما ما تتعلم يجي إسلام كان كهل يصير أما كبرنا يصير Al-Hayaat College يجو ديجان شري لبا بلاد يكبرنا بق يجو إن شاء الله إسلام سوق قادني وقت بدنا إسلام سوق أما هو يوم الديفلومات هذا فقارة هذا أما هذا قيبي كله بريشة كل بحي taas waxay cadeyn u noqonaysaa ama dhiirigelin u noqonaysaa ardayda ka dambaysa inay u helaan firfircooni iyo waxbarashadooda inay sii wataan yani waxay dhalaan Soomaalidu awrba hore socodkiisa leeyahay hadii maanta kuwii ka horeeyay bareefadka awalan ka qaatay shahaado ay noqotay difcadii kala duwanaa baritoona kuwa kale waxay rajeynayaan inay ka qaataan saas iyo kana difcadii kala duwanaa waxa kale oo bareefadka نقص كربين دونا هدو إلى هيدا إن قصدي كلاسيد إسكا كوبناين. هذا ما توردان قف بدرية ننتي كوير درية بالك جو يا كلتك قادم دونا الله هاي شو يستالك تعالى فرصة نوع حلاي ننتي واحد مهمة قفكو إنه أقانتي سواحك بدشوا أقانت ونور شهر جنوب مدوب على قفكو ما توحبو برتي سيرتيفيكيت بالقادن السنة ما شهادة قف بالقادن هي شهادوين كالقادن السنة ما علمي قاد برتين ما أقانت برتين runtii breftku waa ina ka muuqato qofka oo la raahdo qofkan aqoonta xaq ku soo kuna soo dadaalay waxbarashadoodii Rabbi subhanahu wa ta'ala ka dhigo kuwa marka ku anfaca cilmigu fadli aad u badan buu leeyahay Mustafa ana wa kaale sallallahu alayhi wa sallam ilaahayna aayado badan buu kaga hadlay talab ilmiguna waa shay aad u muhiim ah oo qofka looga baahan yahay waxa uu doono waxa bartay marandii qofkii dalab cilmi yahay ha ogaado inay malaa'igta ay markaa maxay ahayd ay u ballaariyeen baadadkooda iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiyaasha ardayda ka qalin jabisay oo iyaguna ka dareen celiyay maanta shahaadooyinka ay qaateen iyo faa'iidada ay u leedahay iyo walibana iyagoo ka hadlaya luqadda Englishka qaar kamid ah ardaydaasi ladoodii iyagana waxa kamid ah ardayda sida tan gudoomiyaha ardayda Englishka qaybta la muujiyay aniga gudoodan waxa mawduucayga I'm going to stand different I am very glad to beautiful if you today I want to say for what is about to use of alternative one of alternative must be different for the people say character behavior is becoming you must give for the rest of your teacher and student for the lesson كمان أنا كل ربي خاص أهان أبشر يا محمد هو صار محوها أي أودي إن أنا مانتا سوه استاجو مجتمع عدل أو صار سكوت متي أن أبان أودي سيء أو يديري جري إن أكار هلا ضد إدلو صار بوحة أول شغلة من كلا يسوق حيجا أبان أفتر ذات أنت أنا برني وحن لايف جروين برنامج ما سووا استاجي شرين ضدك حتى سووا استاجنا كيف جايبون ولا جديري شرين أو محيا علي وكن حجرينا كسوي استاجو لكن ماتا محاسب الجري وعشر كعكة مدام واحد استوى محل أنا يدك قنع الرواق قنعنا سومالك وقنع عدل إنجليز وقنع عدل وقنعنا ده كنت هلاك محل السومالي معلمين تينا أبشر
bulshadan oo saad u qancin lahayd bulshadan marka kuma qancin lahayd bulshadan anigoo u mahad celinaya macalinkayga Abshir oo sidoo ii soo baray life garoon ma aqoon inaan ma awoodi karin inaan qof bilaadan soo hor istaago maanta waxay guntii iyo gunaanadkii waxaa halkaasi lagu soo gabagabeeyay shahaadooyinkii lagu guddoonsiinayay ardayda ka qalin jabisay maxadka Al-Hayaat College Branch 2 ee magaalada Boorama waxayna ku soo dhamaatay xafladani jawi farxadeed oo ardaydu isku ambalyeynayso kaalmaha ay ka galeen waa Cabdiwali Cabdilaahi Diiriye Cabdiwali Nadaara wararka shabakada caalamiga ah ee Gobol Casar News magaalada Boorama.